وإذا سلنا أصحابي مركلة أصمار رويال فاميلي وأنا وأنس عبدية سؤال بكويدينيا مربتا إن عند نقطة مركب كواد قف إلهي دنكيسة لقيت عليها مربتا إن عند نقطة قف عافمات قبل مسكحية يجي أهامبا مربتا أوضن بين إن عند نقطة قف نولش يسقع عندك خطي تطبضنا الدافع هورينا السؤال وحنكوسو دياري شن أرين أما شن ضبيع عضو وهدي أتكل قنتي aad noqon doontid inta aan ku soo sheegayba naftaadana ee marxaad ka noqon doonto hadii aad ka heshid shantan waxyaabo oo ku sheegi doona fikradaada hoos noogu reeb si aan u soo badino hadii ay noqoto waxaadan ka helin sidoo kale comment noo reeb oo noo sheeg waxa ka khaldan yaana hadalka kugu daalinine maxay tahay shantan sifo ama shantan dhaqan ama shantan arin oo hadii aan ku sheego saakay hadii aad samaysid subax kasta waa huwaal inay noloshaada wax badan iska bedeli doonto mid koowaad ba ku bilaabo sideedaba subaxdaada waxaad ka bilowdaa habeenkii inta aadan seexan ka hor macnaheega qorshahaaga subaxnimo ha ka bilaabin subaxdii markaad soo kacdid ee waxa ka bilowdaa habeenkii inta aadan sariirtaada aadin maxaad sameynaysaa waxaad qortaa saddex waxyaabood oo muhiim ku ah haday tahay inaad wax baranaysay waxbarashadaada maalintaas inaad soo dhameysatid adoo ilaahay idmo hadii ay tahay inaad shaqo leedahay subaxdii bari subax inaad kici doonto shaqadaada aadi doonto soo dhameysan doontid oo aadan dhihi doonin wax xanuunsanahay ama xajisba ay ma aadi doono inaad saxdid hadii ay tahay inaad arin kala qabsatid noloshaada wada qorshe inaad arinta ka dhabaysid saddex waxyaabood oo muhiim ku ah subaxda soo socota inaad qoratid saddexdaa wax markay ka dhamaadaan kadib habeenkaaga waxaad ku soo xirtaa oo aad xarig afka uga soo xirtaa inaad sariirtaada timaadid social media iyo waxa ku iraada waxa suran iska soo xirxirtid oo waxa ku iraaday adkaartaada akhrisatid kadibna dhinacaaga midig u seexatid si salaada subax ay isku dhaafeen wali waxaan ku wadaa arinta koowaad oo ahayd inaad subaxda sameyside subaxdii markii la gaaro salaada subax inaad waqtigeeda ugu soo kacdid taasoo ah barakada iyo khayrka iyo dunida lagu sheegayo meesha ka bilaabato oo aad adigana umada kale oo dhan aad dheer tahay hadii aad tahay qof muslim ah oo ilaahay adigu mar hore taas kugu doortay arinta labaad maxay tahay waa arin caafimaad oo muhiim ah oo naftaada muhiim u ah aniga nafteeda muhiim ah qof kasto bil aadan ahna naftiisa muhiim u ah waa maxay waa in aad subaxdii markaad soo kacdid biyo cabtid hal galaas laba galaas ka badsaad aragtid ilaa ay ka dareemayso xitaa inaad labalabootay biyo cab waa muhiim maxay muhiim kugu tahay waxa laga yaabaa inaad hore u maqashay subaxdii markaad soo kacdid galaas biyo cab laakiin si fiican aad dhigto ugu dhig waxa ay ka anfacayso dhan kuma soo koobi karo in muhiimadda ay leedahay oo dhan laakiin dhowr waxyaabood oo ku taabanaya marka koowaad hadii aad subaxdii markaad soo kacday calooshaada aad bartid inaad biyo ku bilowdid oo biyo cabtid hal galaas laba galaas hore kugu sheegayba waxay ka saacidaysaa marka koowaad horta calooshaadu inay socoto oo aad u baahan wax daawo inaad isticmaashid ama aad u baahan inaad raqiiqasatid iyo waxyaabo noocaas Soomaaliya marka la joogo caloosha lagu socodsiin jiray arinta labaad oo ay ka saacidayso inaad biyo cabtid waxay tahay jirkaagu inuu yeesho nabro inuu yeesho meelo go'an ama ma aragtay heero inuu adigu indhahaagu ay fool xumaadaan inuu jirka ka noqotid maqaarka qof daalan in aad qalashid inay bishimahan ku jarjarmaan waxaas oo dhan bay ka hor leexinaysaa hadii aad calooshaada bartid subaxdii inaad biyo cabtid arinta kale ay ka saacidayso marka biyo cabtid subaxdii waxay tahay lagama yaabo hadii aad calooshaada bartid inaad biyo cabtid subaxdii inuu madaxa ku xanuuno marka shaqada joogtid inuu madaxa ku xanuuno marka iskuulka joogtid inuu madaxa ku xanuuno marka adiga waqti qaadanaysid banaankaaga arimo kala haysatid inuu madaxa ku xanuuno marka meel cabro soo gashid waxay kale oo ka saacidaysaa markaad gawaarida raacdid oo kale iyo inaad isdaba maraysid waxyaabahaas oo dhan inaad biyo cabtid naftaada aad bay muhiim ugu tahay mar dambe dhakhtarku ku dhihimayo biyo cab waxa laga yaabaa inaad wareertay markasta dhakhtar tagto ku yiraahdo biyo cab sababtoo ah biyo ma cabtid waxa laga yaabaa inaad soo kacdid oo calooshaada anjeelo ku bilowdid isha ama wax kale adigana markaas caafimaad kugu dambaysa maalintaada oo dhan isdaba maraysa ilaa ay adiga
qof noloshaas ku jirana taa tahayna waxa laga yaabaa caafimaadkaaga marka ugu dambayso inuu ka sii daro laakiin waxa tala fiicana oo tala caafimaad ahna dhakhtar kasta uu ku sheegaya inaad biyo cabtid marka ugu muhiimsan biyo la cabana waxay tahay subaxdii taas meeshaas uga baxo maxay tahay arinta saddexaad oo haddii aad ku dhaqantid aad noqonaysid qof guulaystay subaxdii marka aad soo kacdid isku day inaad hawl yar qabatid hawl yar maxay tahay in meesha aad seexatay aad hagaajisid in gabar walaashay hadday joogto oo hawl kala haysato aad caawisid in wax guriga ka khaldan aad samaysid haddii intaasba aadan samayn inaad samaysid wax yar oo exercise ah 30 daqiiqo aabad boodid jirkaaga active ka dhigtid macnaha taas ku jirina waxay tahay haddii aad saas samaysid oo aad wax yara oo hawl ah laakiin naftaada aysan hawl u arag waxay kaa saacidaysaa inaad noqotay qof maalinta khalday intaasan asagu khaldin macnaheedu waxay tahay maalintaada way ku khaldaysaa madaxayna kaa jahwareerinaysaa marka aad intaad iska soo kacday iska socotid laakiin marka intaad soo kacdid oo gogosha ku soo kacday hagaajisid oo soo baxdid oo hawl yar oo aad u jeedid guriga u jeedid aad qabatid oo soo kacday oo exercise yar samaysid waxaad tahay qof active ah maalintiisana gacan bir ku qabtay wax ka khaldamayna ma jiraan hore u soconaysa taas meeshaas uga baxo waa caado fiican haddii aad ku dhaqantidna heer aad ku gaaraysid maxay tahay arinta afaraad oo haddii aad ku dhaqantid aad noqon doontid qof caafimaad qaba ilaahayna raali ka yahay noloshiisana guulaystay waxaad qortaa 3 waxyaabood oo muhiimadaada iyo goolkaaga maalintaas ay tahay inaad qabatid macnaheedu buug iyo qalin baa soo qaadanaysaa waxaad qoraysaa aniga ahaantayda maanta maxaan rabaa inaan sameeyo kadib maxay kaa saacidaysaa maanta goolka aad leedahay inaad warqad ku qortid waxay kaa saacidaysaa inaad maalintaada focus ka saartid ama diiradda saartid ama muhiimad siisid 3 waxyaabood maanta inaad dhamaysid hadal baa wuxuu ahaa qof kasta oo maalintiisa qorta kadibna sida ay tahay u raaca ilaa dhamaadka macnaheedu qof kasta oo maalintiisa qorsheeya kadibna qorshihiisaas maalintaas dhamaysta wuxuu la macno yahay qof wata dun iyo irbad oo ku talaya wadadii uu mari lahaa wadadaas oo ah wadada ugu saxmada iyo mashquulka iyo dhibka badan ee nolosha asaguna dun iyo irbad buu wataayo wuu talaya kadibna wada u soo baxaysa wadadaas uu raacaya ilaa iyo meeshii uu rabay macnaheedu si fiican baa u fahamtay waa laga yaabaa ugu dambeyn qor maalintaada kadibna raac kadibna 3 waxyaabood aad qortay maantay soo dhamee kadib waxaa ka bixi doona meesha sidoo kale in lagu jiheeyo oo waxaadan u baahnayn maanta lagu khasbo oo qof iska raacadid oo waxa ku iraahday inta aad caajistid aad ma aragtay waqtigaaga meel kale ku lumisid ama ma aragtay inaad noqotid qof iska fadhiya oo dadkuna dhaafaan hore u dhaafaa waxaas oo dhan meesha ka baxayaan waqtigii kaa lumi jiray oo dhanna meeshuu ka baxayaa adigana waxaa noqonaysaa qof diiradiisu ay meel saaran tahay oo wada saaran umana baahnid inuu waqtigan kaa lumo sababtoo ah goolkaas aad leedahay soo qabanaysaa marka maalintaada waxay ku dhamaanaysaa adigoo 3 waxyaabood dhameeyay dadkii fafadhiyay oo dadkii mashquulsanaa kullina dhaafay wadadii guushana cagta saaray si fiican baa ii fahamtay taas samee waa tan afaraad maxay tahay mid shanaad ku bilow subaxdaada si ku talagal ah ku bilow subaxdaada si ula kac ah okay weli ma aad fahmin miyaa haddii aan ku sii faahfaahiyo waxaan ka wadaa subaxdii soo kac oo naftaada u sheeg inaad tahay qof wanaagsan subaxdii soo kac oo naftaada u sheeg inaad tahay qof awood leh subaxdii soo kac xitaa haddii aad tagtid muraayada horteeda way ka sii fiican tahay inaad adigoo fadhiya aad inta naftaada u sheegtid subaxdii soo kac oo naftaada ku dheh waxaan ahay qof qurux badan oo wanaagsan oo qiimo leh haddii aan ku sii wado waxaad naftaada u sheegtaa in aad tahay qof awooda inuu naftiisa wax ka bedelo horeyna u socdo qiimo iyo sharaf iyo qurux iyo karti intaba qof leh oo aysan cidnana u dhaweyn waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysid maxay muhiimadu tahay muhiimadu waxay tahay sideeda marka aan soo kacno maskaxdeenu way taagan tahay way qufulan tahay waa bir saasay u taagan tahay marka adiga waxaa laga rabaa inaad furtid haddii aad iska furtid waxaad noqonaysaa qof iska socda laakiin si positive ah oo muhiim u ah oo qurux badan
oo wanaagsan haddii aad maskaxdaada u furtid waxaa meesha ka baxaya maskaxdaadu inay qasab ku shaqeyso maalintaas oo dhan waxaa meesha ka baxaya in jirkaaga iyo naftaada iyo caqligaaga iyo maalintaada intaba uu caajis soo galo waxaa kaloo meesha ka baxaya maskaxdaada iyo adiga laba qof oo kala socda inaad noqotaan waxaa kaloo meesha ka baxaya sideedaba inaadan noqon qof aan caafimaad qabin xitaa haddii ay arrimahaada kala caafimaad xumaadaan waxaad noqonaysaa ilaahay ma xumeeye waxaad noqonaysaa qof weli caafimaad qaba oo maskaxdiisu ay aaminsan tahay inta aan kuu sheegayba inay tahay muhiimadda intaas oo dhan kasii weyn oo meesha ka baxaysa waxay tahay in aad ka fikirtid shalay wixii dhacay in aad ka fikirtid wixii aad soo martay in aad ka fikirtid waxaad samaysay shalay oo ahaa wax xun okay waayo aan kuusii jilciyo ka soo qaad shalay qof baad ismaagteen wuxuu ku yiri kelmad aada ka helin kelmaddii adigu way kula xumaatay oo si qaab daran baad u fahantay naftaada iyo maskaxdaadana kama helin saaka marka aad soo kacday muhiimaddu ma ahan inaad xasuusatid shalay qofkii wuxuu kugu yiri ee muhiimaddu waxay tahay qofkiina inaad cafidid adigina naftaada u sheegtid intaba inaada ahayn oo aad tahay qof intaasba ka weyn intaasna kasii qiimo badan intaasna fikirkiisa iyo caqligiisuba aysan la ahayn wax weyn marka maxaad samaynaysaa waxaad leedahay anigu waxaan ahay qof awood leh oo noloshaana heer ka gaari doona maxaa dhacaya marka intaas markaa samaysid adigu marka koowaad ma noqonaysid qof wareera oo jah wareersan ee waxaad noqonaysaa qof hal meel naftiisu ka soo jeedo hal go'aan leh maskaxdaadana su'aal kastoo ka hor timaada laba jawaabood kuma siinaysee adigoo israacsan baa ka jawaabaysaa muhiimadda kale oo ay kaa saacidayso waxay tahay haddii aad naftaada intaa u sheegtid waxaad noqonaysaa subaxdaas iyo wixii ka dambeeyaba noloshaada qof karti leh oo awood leh kartidu ma ahan sideedaba inaada baqin ee kartidu waxaa weeye inaad caqligaaga maamushid horeyna u socotid dadkana la fikri aada noqon qof iska xanaaqana aada noqon qof xirxiranna aada noqon qof aan saaxiib samaysanna aada noqon qof saaxiibo badan samaystana aada noqon ee noqdo qof naftu iyo maskaxdu iyo jismiyan intaba hal isku ah haddaad intaba hal ka tahayna way adkaanaysaa naftaadu inay cadow kugu noqoto marka subaxdii arrintaas samee waa arrin muhiim ah adigana muhiim kuu ah anigana muhiim ii ah haddii aad fiidiyowgaan ilaa hadda aad daawanaysidna sharaf baad leedahay iyo qiimo ilaahayna ha ku sharfo laakiin isku day shantaas inaad samaysid kadibna hal isbuuc kadib su'aal iska weydii maxaa iska kaa bedelay ma waxaad noqotay qof active ah oo socday oo hami badan yeeshay mise waxaad tahay weli qofkii caajiska badnaa oo subaxdii hurdada ku daahi jiray oo salaadu dhaafi jirtay haddii aadan horey noola joogin channelka subscribe iska saar haddii aad videogan ka heshayna hoos noogu reeb si aan u soo badino waa anigoo Anas Cabdiya caday boolana maanta ilma joogto waa ka xumahay caawa ka bilow hawshan hadduu ilaahay idmo adoo ku dhaqmaya shantan waxyaabood kadibna jawaabtaada nagu soo celi inta ka horeysana wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh